السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلن جنالك مركز سود واضح أدي هذا مهتسنتهين maanta waa axad waana kowda bisha March ee saddexaad sanadka 2026 muuqaalada dagaaladan Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil u dhax muuqaalkan waxaan rabaa inaan maanta idin kula wadaago kadib dilkii hogaamiyihii sare ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran waxa ay ku hanjabtay in ay argoosan doonto haddaba duqeymaheeda ay ku wado Israa'iil iyo wadamada bariga dhexe oo saldhigyada ciidamada Mareykanku uu ku leeyahay way si laba jibaartay. Hadda waxaa soo baxaya in Mareykanku uu qirtay 3 askari in ay ka dhinteen oo Iran ay ka dishay 5 kalena ay ka dhaawacmeen. Madaxweyne Trump oo isaguna goordhow bartiisa True Social ku soo qoray in 48 kamid ah hoggaanka Iran ay dileen 9 markab oo ciidamada badda Iran ay leeyihiin ay quusiyeen kuwa kalena ay ku daba joogaan. Haddaba Republicanka ayaa bilaabay carada ay ka qaadeen dagaalka madaxweyne Trump uu ku qaaday wadanka Iran kadib markii ay soo baxday in askar Mareykan ah ay ku geeriyootay. Kulankii qolka Situation Room-ka oo madaxweyne Trump uu kala socday sida dagaalka uu u socdo ayaa waxaa laga arkay sawir madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Susie Wiles gacanteeda inay ku xiran tahay saacadaha noocan qofka fitnesskiisa lagu kontrolo, taasi oo ammaanka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la joogta qatar ku ahayd. sidoo kalena waxaana idinla wadaagayaa Iran oo weerartay maraakiibtii shidaalka siday ee marinka Hormuz marayay oo mid kamid ah arintaasi oo 20% shidaalka caalamka uu soo maro. Trump iyo Netanyahu oo shacabka Iran ugu baaqayeen inay isku soo baxaan maadaama dawladii la tabareeyay in dawladda ay afgambiyaan. iyo nin asal ahaan la leeyahay Senegal ayuu ka soo jeeday oo muslima oo xalay baar ku yaala gobolka Texas ay ku dilay 2 qof 14 kalena ku dhaawacay. ninkaasi maxaa laga helay gaarigiisa dharka uu watayna maxaa ku qornaa iyadoo hadda arrin argagixisa darteed loo baarayo. shalay ilaa iyo maanta ammaanka kaniisadaha masaajida meelaha synagogue oo yahuud ay wax ku caabudaan tareenada aad ayaa loo adkeeyay maxaa yeelay waxa laga cabsi qabaa dad ka careysan dagaalka Mareykanku Iran uu ku qaaday in dhibaatooyin gudaha Mareykanka ay ka geystaan. arrimahaas oo idil ayaan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada. intii labaad ayuu galay dagaalkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran markii ay Iran xaqiijisay dilkii hogaamiyahoodii sare Ayatollah Ali Khamenei oo 37 sano wadankaasi soo xukumayay. Iran waxa ay ku hanjabtay in ay argoosan doonto. wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri calankii uu kor u qaaday hogaamiyaheena sare dhulka ma dhigi doono. waxaana sidoo kalena uu sheegay in xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee wadankaasi Iran waxa uu yiri sida qalbigeena ay u burburiyeen ayaan Israa'iil iyo Mareykanka qalbigooda u burburin doona. marka waxay si laba jibaareen duqeymihii Israa'iil ay ku hayeen. Israa'iil qasaare fara badan ayaa soo gaaray caasimadda Tel Aviv iyo magaalooyin kale ilaa ay xalay gantaalada balistiga ah ee Iran ku garaacisay. 8 qof oo dhimasho ayay Israa'iil sheeganaysaa. Imaaraadku 3 qof ayay sheeganayaan. sidoo kale wadamada Qatar, Kuwait, Bahrain duqeynta Iran wali sidii ayay ugu sii waday. marka madaxweyne Trump ayaa xitaa qiray arrintaasi wuxuu yiri Iran waxay qorsheynaysaa inay si adag u garaacdo saldhigyadeena ku yaala bariga dhexe. anaguna wuxuu yiri sidaasi si ka adag ayaan u garaaci doonaa. Trump waxa uu bartiisa True Social ka xitaa goordhow ku soo qoray in 48 kamid ah hoggaanka Iran ay dileen. waxaana uu sheegay in 9 markab sidoo kale ay quusiyeen xarumihii ciidamada baddana saldhigyadoodii ay burburiyeen. wuxuu yiri maraakiib kale oo muhiim u ah hadda ayaan ku daba joognaa kuwa muhiim u ahna waan burburin. haddaba dagaalku waxaad u muuqanaysaa inuu hadda weji kala sii yeelanayo maxaa yeelay askar Mareykan ah ayaa geeriyootay. arrintaasina taageerayaasha xisbiga Trump iyo waliba xisbigiisa ayna Republicanka ah aad ayay uga careysan yihiin. xubnaha Republicana qaarkood marka laga reebo dimuqraadiyiinta ayaa hadda waxay leeyihiin iyadoo Congress-ka uusan ogolaasho ka helin ayaa madaxweyne Trump isagu iskii uu dagaalkan u galay. wadanka Mareykanka markuu dagaal ku qaadayo wadan kale ogolaasho Congress-ka ayaa looga baahan yahay laakiin Trump hadda ogolaasho ma uusan helin. hadda marka 3 askari oo ciidamada Mareykanka ayaa dhimatay ayaa la leeyahay sida Central Command saldhigga dhexe ee ciidamada Mareykanka uu xaqiijiyay. 5 kalena waa ay dhaawacmeen. waxa la leeyahay sidoo kale askar kale ayaa jirto dhaawacyo fudud ay soo gaareen oo iyaguna dhawaan sida taliska dhexe uu sheegay ku soo laabanaya shaqadooda. ciidamadan halka ay ku geeriyoodeen lama sheegin laakiin waxa loo maleynayaa gantaaladii ama diyaaradihii drone-iska ee kamagaziga in maraakiibtii ay saarnaayeen lagu dhuftay sidaasina ay u geeriyoodeen. waxa sidoo kale taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ay sheegeen in eheladooda 48 saac gudahood lagu wargelin doono
askartan geeriyootay. marka markii ay soo baxday dilka askartan ayaa caradu haddana ay sii kordhaysaa, maxaa yeelay ninka qaramada midoobay u qaabilsan dowladda Mareykanka oo la yiraahdo Michael Waltz ayaa waxa uu sheegay in xurnimadu aysan si free ah aysan ku imaanin oo bilaash ah. arrintaasina cara weyn ayay abuurtay. yaa la xureynaya? ma shacabka Mareykanka la xureynaya? shacabka Iiraan miyaa la xureynaya? muxuu ula jeedaa arrintaasi? hadalkaasi viral ayuu noqday markii uu ka hadlayay UN-ka golaha amniga qaramada midoobay kulankii degdega ahaa. sidoo kale safiirka dowladda Iiraan golaha ammaanka u fadhiya ayaa isaguna shalay hadal uu yiri wuxuu noqday mid viral. Mareykanka waxaa looga baahan yahay in ay akhlaaq yeeshaan ayuu yiri siiba safiirkan, maxaa yeelay hadallada uu goobta ka jeediyey ma ahayn hadallo aad u wanaagsan. sidaas darteed marka hadda askar Mareykan ayaa dhimatay, waxa la 3 waa ay dhinteen, 5 kalena waa dhaawac. Republicaankuna arrintaasi ayay aad uga careysan yihiin, madaxweynaha ajendayaashiisa dagaalkan la xiriirta ayay aad uga careysan yihiin maadaama hadda dhimasho ciidamada Mareykanka ay timid. sidoo kalena waxaa muuqanaysa in hadda howlgalkan oo loogu magacdaray Operation Epic Fury in markii lagu dhawaaqay madaxweyne Trump habeen hore Mar-a-Lago qolka situation roomka oo markii xaaladdu dagaalku uu bilaabanayay uu kala socday in nolosha madaxweynaha iyo xubnaha la joogay ay khatar gashay. maxaa yeelay madaxa shaqaalaha aqalka cad Susie Wiles oo madaxweynaha daacad waa isla markaana si aad ugu dhow markii la doortayna qofkii ugu horeeyay oo magacaabo ahayd ayaa waxaa sida sawirkan aad ka aragtaan gacanteeda waxaa lagu arkay saacadahan qofku fitnesskiisa caafimaadkiisa kala socdo. waxaa la yiraahdaa leeyahay Whoop ayaa la yiraahdaa, fitness tracker ayaa la yiraahdaa. marka madaxweynaha waa lagu soo taxraaci karay ayaa la leeyahay. marka xaalad noocaasi oo kala jirta wax kasta oo elektrooniga waa la iska fogeeya. shalay waa tii la arkayay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo mobillo wax looga duubayo. marka waxa leeyahay arrintaasi ammaanka madaxweynaha ayay khatar gelisay iyo xubnaha la joogay, maxaa yeelay saacadaasi waa lagu soo taxraaci karay. arrintaasi ayaa hadda sidoo kale warbaahintu ay si aada ay uga hadlaysaa. waxaa sidoo kale jirta in shidaalka caalamka hadda laga yaabo in sare u kac laga dareemo, maxaa yeelay marinka Hormuz oo maraakiibta shidaalka wada ay soo maraan 20% shidaalka caalamka ayaa Iiraan waxay sheegtay maraakiibta inay bartilmaameysan doonto. haddana kii u horeeyay ayay bartilmaameysatay oo la arkay isagoo gubanaya. dhinaca kale Trump iyo Netanyahu ayaa waxay ugu baaqayaan shacabka Iiraan inay isku soo baxaan isla markaana dowladooda ay afgambiyaan. Trump habeen hore markii uu ku dhawaaqay dagaalka waa kii yiri marka aan idin aslaaxino oo madaxda aan dilna kadib shacabka adinka ayaan idinku wareejin doonaa, adinka ayaan iska leh hoggaanka wadankaasi. marka hadda waxay ugu baaqayaan inay isku soo baxaan. dhinaca kale ilaa iyo shalay waxaa laga digayay Mareykanka gudihiisa weerar argagixis inay ka dhici karaan. wasaaradda amniga gudaha iyo FBI waxaa la adkeeyay ammaanka masaajidada, kaniisadaha, goobaha Yahuudda ay wax ku caabudaan ee synagoga iyo waliba goobaha train stationada. waxaa la yiri dad ka careysan dagaalkan Mareykanku ku qaaday Iiraan ayaa laga yaabaa laakiin kali ah inay weeraro geystaan. hadda arrintaasi xal ayay soo baxday. gobolka Texas baar ku yaala gaar ahaan magaalada Austin ayaa waxaa la leeyahay nin asal ahaan ka soo jeeda Senegal oo muslima waxa uu xalay ku dilay 2 qof, 14 kalena waa uu ku dhaawacay. habeenada Jimcaha iyo Sabtida waxaan ognahay baararka dadkan ay gaalada inay isugu yimaadaan oo ay ku caweeyaan. marka waxaa la leeyahay hadda FBI-du waxay baarayaan in xiriir uu la lahaa ninkan uu ka careysnaa dagaalka Mareykanku uu ku qaaday Iiraan oo weerar argagixiso darteed ahaanteed ayaa loo baaraya. marka waxaa la markii dambena booliska ayaa ninkaasi dilay. ninkan ilaa hadda magaciisa lama shaacin, laakiin waxaa la leeyahay waa muslim, waana muwaadin Mareykana, waxaana uu ka soo jeedaa wadanka Senegal. gaarigiisa markii la baaray waxaa laga helay kitaab Quraan iyo sidoo kalena in waxaa la leeyahay dhar kuwa muslimiinta og ayuu ku libisnaa. sawirkan aad arkaysaan waa ninkaasi toogashada geystay, isla markaana waxa uu watay huurigaas ama funaanadaasi ay ku qoran tahay property of Allah, hantida Ilaahay. waxauna kasii hoos watay ayaa la leeyahay funaanad calanka Iiraan uu ku sawiran yahay. marka hadda waxaa muuqanaysa ninkan gaarigiisina in la baaray in laga helay kitaabkaasi iyo nabadgelyo.